xigmadii abwaan hore caraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتها هو ذا نقد داون إيساي وعد كوسو دواتان برنامج كارا وعد كديارنا حافظة دار السلام كم بدا حافظها عصوبة كوسو كورناي حافظها مقارنة مقدشو وعي كوتها لا دولت كمقارنة مقدشو ميل 8 كيلومتر يلا بقول أو متر مقارنة مقدشو وشرته وحافظ سيدا دارك كرتان لو ديسيقاب عصرية أو لا كان قاضية هنانك عصرية يعني عالمية waxaad dabcan aad daawan doontaan xaafadan iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo adeegyada ay bixiso iyo sidoo kale waraysan la yeelan doono maamulka xaafadan Dar es Salaam barnaamijka anigoo aadan Jaamac Axmed ayaa idin la socodsiin doona saaxiibkay guduudana dhanka kaamirada iyo farsamada ayuu ka saacidi doona daawasho wanaagsan. xigmadii abwaan hore caraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuur ayaatee. xigmadii abwaan hore caraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay. waddadan aad arkaysaan waa waddo isku xiri doonta xaafadda Dar es Salaam iyo degmada Yaaqshid gobolka Banaadir waxaana la rajeynayaa inay wax weyn ka tari doonto ama ay fududeyn doonto isu socodka degmada Dar es Salaam ama xaafadda Dar es Salaam ee cusub iyo sidoo kale degmooyinka gobolka Banaadir sidaad arkaysaan waxaa la saaray laami qurux badan oo runtii aan rajeynayna inuu wax weyn ka tari doono isu socodka degmooyinka Yaaqshid ama Daynile iyo isku xiri doona xaafadda Dar es Salaam ee cusub. xaafadda Dar es Salaam waa xaafad cusub oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho waxay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho ee jidka warshadaha waxayna masaafo ku dhow 8 kilomitir ay banaanka ka tahay magaalada Muqdisho waa deegaan loo dhisay qaab casri ah oo lagu tilmaami karo nooceeda tii ugu horeysay ee magaalada ama dalka laga hirgeliyo. deegaankan cusub ayaa waxyaalaha muhiimada dheeriga ah u sii yeelaya waxaa kamid ah qaabka loo naqshadeeyay goobta oo istaraatiiji ah iyo ishaybsiga dadka ku noolaan doona. booqashaan ku tagnay xaafadan cusub oo daaranayd barnaamijkan ka diyaarinay ayaa markii aan marano degmada Yaaqshid waxaan cagta saarnay laami cusub oo isku xiri doona xaafadda Dar es Salaam iyo degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. inkastoo qaybo kamid ah laamiga uu dhismihiisu socday. laamigan ayaa sida daawanaysaan waxa uu yahay mid cusub waxaana markaad ku socdaalaysaa dareemaysaa safaraad u wanaagsan. waxaana laamigan cusub sahlaya isu socodka xaafadan iyo degmooyinka kale gobolka Banaadir.
waxyaalaha sida gaarka kuu soo jiidanaya ayaa waxaa ka mid ah in laamigan sidan u dheer oo la dhihi karo waxa uu ku dhow yahay laamiga ay dowladda turkigu saartay jidka Maka al-Mukarrama inay hirgelisay shirkad maxalli ah oo ah bangiga Salaam ayna muujinaysaa in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay fulin karaan mashaariic sidan u weyn. waxaa sidoo kale aad ogaanaysaa in jidadka magaalada oo dhan ama badiba laamigan la saari karo oo weliba shirkadaha maxalliga ay fulin karaan waa haddii dadku ay ku wada baraarugsan yihiin adeegyada danta guud. laamigan ayaa si weyn ugu faa'iideeyay dadka boosaska ama dhulka ku lahaa deegaankan oo qiimahoodu kor u kacay. halkan aan taaganahay waa argada laga galo xaafadda Daarasalaam ee duleedka magaalada Muqdisho. dabcan waxaa idin muuqda magaaladii xaafadda Daarasalaam ayaa halkan idin ka muuqda. xaafadan guda geli doonaa balse aan idinku soo gudbino muuqaal dhammaystiran oo ku saabsan xaafadan iyo balqaabka ay u dhisan tahay. waxaad sidoo kale aad aragtaan laami cusub oo xaafadda isaguna soo gala oo ilaa iyo magaalada Muqdisho xiriirsan. marka waxaan idin soo gudbin doonaa حفظتي مدينيو حراني يرير مدن حتى اللي ذا قروحيو عمر بلي كاران. waxaan sida aad aragtaan hadda galnay xaafadda Daarusalaam waxaana abaarnay masjid jaamica xaafaddu leedahay oo markaasi salaadii jimce lagu jiray. dad aad u tiro badan ayaa ku tukanayay masjidka waxaana sida aad daawanaysaan uu leeyahay baaki waasic ah oo baabuur badan la dhigan karo. intaasi kadib waxaan gudagalnay inaan booqano goobaha diyaarsan ee hadda ay xaafaddu leedahay. حرت الشيخ ويليو وردنا بدلو حري حوتاك سيدكيو حرير يا هلوة السبضان عرقاب مركن صو حسوس طبا حتى يجريسي كسيدكيو حرير يا هلوة السبضان عرقاب مركن صو حسوس طبا حتى يجريسي xaafadan ayaa waxaa ka dhisan dhismooyin aad u qurux badan oo isugu jira dabaqyo iyo fiilooyin qaarkood la goglay. xaafadda ayaa leh adeegyada nololeed iyo khidmado dhammaystiran sida koronto iyo biyo joogto ah, masjid jaamica, isbitaal weyn, goobo laga dukaamaysto, iskuulo isugu jira hoose, dhexe iyo sare. waxaa kaloo intaas dheer oo ay xaafaddu leedahay garoomada lagu ciyaaro, goobaha madadaalada carruurta, jardiinooyinka iyo jidada aad loo qurxiyey. ديباتيو وشدرن بكاي وشدرن بكاي حمري إلهي رويو ديباتيو وشدرن بكاي وشدرن بكاي حمري السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المقعة؟ سارة كريم. سارة حاجات كتير دلوقتي ماشي دقن بتكمل تايم مسوا وصوت الحيس دك. ضلحيس. حافظ ذاك كتير. ولا ذاك. وياه محد دري ميسا مركز هالكن تبي. نشاط بضم. واطن محاكم إذا وحيالها تكهش هالكن يلا. وحي عجب قليو. أي محاكم إذا وحيالك وعجب قليل. يفوق. فرصة. وياه. يو حرمته. وياه درينك هو أدو في عين سما. وش ذي؟
way aad ma santaadeen hayadeer adiga magacaaga marab adeer way iga dhaftay magacaaga ana ku haynay beela maxamed xuseen way leila dadka halka degan baad ka mid tahay mise waxa weeyaan waa soo dalxiis tagtay oo soo dalxiistay xaafadee ka timi على عدال هرواني هروان كتب واي واسيد درينكا وفي عين درينكا ايوه كوي مريا السلام عليكم وعليكم السلام هذا المقعد بشار احمد عيسى بشار حاجه كتبي عرفات بد كتبي واي maxaad u timi halkan ina wiifo biya ku ciyaar واي maxaa ku cajab galiyay markii inta halkan biya ku cajab galiyay واي maxaad dhihi lahayd dhalinyarta kale adiga kula midka ah xaafadiin iyo kale waan pleena واي magacaaga Abdulqaadir Darmaan Jaamac Abdulqaadir xaafadee ka timi degmadii Yaaqshiid magaalada Muqdisho maxaad soo raacday waxaan soo raacay baabuur waa lagu keen واي waxyaalaha ku cajab galiyay maxaa kamid ah marka halkan waxay cajab galiyay meesha biya lagu dabaalanayo wiifooga iyo meesha ciyaalku ciyaaraan gaadiidka BLka loo yaqaano ayaa durba isaga shaqo bilaabay xaafadan cusub iyo magaalada qaybaheeda kale ayna ii sheegeen darawalada gaadiidku in xaafadan ay degmooyinka kale uga fiican tahay jidadka oo ah mid aad u wanaagsan qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaan kala sheekaysay sida ay shaqadoodu tahay السلام عليكم عليكم السلام والله magacaaga عبد احمد waxaad ka mid tahay caasiyaasha ka dhex shaqaysta xaafada Dar es Salaam iyo magaalada Muqdisho qaybaheeda kale ilaa iyo miisaanka ilaa miisaanka Dar es Salaam isaga shaqaysta ها waa sida shaqadu waa iska caadi ay qiimaha ka waran aad ku qaadaan Dar es Salaam ilaa iyo miisaanka dhuxul ma waa iska shan kulantan ay dadka see inta badan u heshaan ma suuq la'aan baa ku dhacda mise dadka inta badan waa yimaadaan meesha waa iska caadi waa yimaadaan waayahay marka aad shaqada marka aad u fiican tahay caadi u fiican tahay sax waa halkan ilaa iyo miisaanka dhuxusha waa 5 kun aad maasan ugu dambeyntii madaxa suuqgeynta Dar es Salaam Village Fuad Ahmed Warsame ayaan ka waraystay mashruucan iyo halka uu marayo xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkayga xaruntii dadkayga xidig nuurayaate xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkayga xaruntii dadkayga waa tahay daawadayaal haddana waxaan la taaganahay sidaad aragtaan Fuad Ahmed Warsame oo ah madaxa suuqgeynta xaafadan Dar es Salaam Village cusub ee daawanayseen Fuad ku soo dhaw telefishinka Somali News marka xigtana bal waxaad sharaxaad naga siisaa xaafadan iyo ujeedooyinkii loo aasaasay aad u maasantihiin Somali News TV-ga booqashada aan soo booqateen Dar es Salaam City xaafadda Dar es Salaam City waa xaafad cusub oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho xaafadda markii aan tilmaamo waxay isbartiibada ama istaadi Muqdisho ka xigtaa dhanka waqooyi 7 kilomitir ay u jirtaa isbartiibada waxaana taga jid laami ah lagu u gudbi doonaa jid kale iyo bal dadku sida ay ku iman karaan marka hore xaafadan goormaan la sameeyay dhismaheeda la bilaabo dhismaha waxaan bilawnay sanad ka hor aan bilawnay qorshahana qorshaysan wuxuu socon doonaa 3 sano qorshaha koowaad oo aan dhisaynana guryaha aan dhisayno waxay isku jiraan guryo dabaqyo ah iyo filooyin sida aragtaan laamiga qaybta bari dabaqyada u talagalnay oo dhowr nooc kala ah sida soo arteen muuqaaladoodii ayagoo gogolan guryihii gurigan dabaqa hadda aragteen wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo hurdo ah fadhi iyo khado jiko 4 musqulood iyo 2 qol iyo musqul service ah marka guryahan aragnay dabaqyada iyo filooyinkaba ka kooban masaambalo uma hadda loogu talagalay mise waa guryo durba waalid oo dadku way kiraysanayaan ama digaya qaarkood oo ku aragteen dad baa dalbaday oo loo diyaariyay qaarkoodna waa samballo oo waxa way guryo sambalka ah qaarkoodna waa la dalbaday waa la diyaariyay kuwan dhismoodu u socdaa dir
xaafaddu ma kooban tahay oo deyr ma la mariyay mise waa wali way bannaan tahay oo lama soo koobin weli dhismihiisa socda dhismaha markuu dhamaado ayaa laamiyada la leexinayo iyo jardiinooyinka iyo community gateska iyo security waxa dhan markaas ay imaanayaan markii xaafadda ay dhamaato dhismaheeda construction dhamaado way marka sidaan arki karno waxaa jira laami dheer oo cusub oo isku xiraya qaybaha kale magaalada laamigan ma idinkaa sameeyay mise waa kii magaalada ka socday ee dawladdu dhis laamigan waxaa sameeyay Salaam Somali Bank waan Dar es Salaam laamiga Dar es Salaam ayuu yimid xaafadda waxa mashruucan maal gelinaya horta waa Salaam Somali Bank company construction ka ah waa Al Buruj Construction company laamiga dhisay oo contractiga lagu siiyay company Soomaaliyeed weey oo Kulmiye General Service ah ayaa laamiga dhisaya waxaana contractiga siiyay company Al Buruj Construction company Soomaaliya qaatay qandaraaskan oo dhisayba kulli company dhisaya waa Soomaali waxaan aragnaa dad aad u fara badan oo xaafadda imanaya oo xaafadaha magaalada Muqdisho ka imanaya dadkan ma soo dalxiis tageen mise qaarkood waxay rabaan inay gataan oo waxba idinka gataan dadka dhowr nooc isugu jiraan dad dalxiis u imaanaya waxaan sameeynaa goobiyo caruurta lagu madadaalinayay dadka qaarkood information bay raadinayaan dadka qaarkoodna waxbay select gareynayaan oo waxay u imaanayaan in maalinta jimcaha qaasatan waxay u imaanayaan dadka inta maalmaha kale shaqay leeyihiin in meesha design ka socda guryaha ka socda isbedel ka socda inay go'aan ku qaataan dadka qaarkood information dadkoodii dibadda ku jiray gaarsiinayaan hadaad markaa dadka aad u sharaxdo digida bulshada ma laga heli karaa meesha waa su'aal aad u fiican marka hore waxaan ka bilaabnay dhismaha waxaan ka bilaabnay adeega aasaasiga ah waxaan ka bilaabnay ceelashii wadadii goobihi waxbarashada goobihi caafimaadka suuqii weynaa marka hore waxaan ka bilaabnay dhismaha haddii aad dhisto 100 guri oo aadan adeega aasaasiga aad dhisin wax deegi kara ma lahan laakiin haddii adeega aasaasiga uu ku dhameystiran yahay hadda 2 guri dhisto waa la degayaa marka already waxaan dhigi karnaa Facebook koowaad uu noo dhamaaday adeega bulshada dhanka amniga oo kale ka waran xaafadda iyo amnigeeda iyo sugideeda iyo ma jiraan ciidan amni oo xaafadda ilaaliya horta anaga Dar es Salaam waxaan leenahay security noo qaas ah oo company baan nahay security noo sharciyeysan oo qaas ayaan leenahay oo ammaanka ilaaliya xaafaduna waa iska ammaan habeen iyo maalin waa shaqeynaa waxa qabada wax noo istaagan ma jiraan waxyaalaha aad rajaynaysaan xaafaddan ay ku soo kordhisaan ama nooca aad rabtaan in xaafaddan ay mustaqbalka noqoto hatta dadka u yara sharax xaafaddan waxaan rabnaa inay ka duwnaato xaafadihii magaalada Muqdisho ay noqoto xaafad design-keeda oo yahay standard adeegeeda oo yahay adeeg standard ah ay yahay macnaha meel ka qurux badan magaalada Muqdisho haddii aan lahayd jardiinooyinka haddii aan lahayd goobaha kale oo bilicda leh haddii aan lahayd hawada iyo saxada wanaagsan ee deegaankan saan rajaynayno dadku laamigan maraa xaafadda aad bay u sahlan tahay hadda dadku inay xaafadihii guud ahaan magaalada Muqdisho dhan ay isaga socdaan Soomaa waxba kama duwana xaafadihii kale magaalada ku yaallay way ka sahlan tahay maadaama jid laamiya la sameeyay way ka sahlan tahay inaad magaalada meel kale ka aado in halkaan soo aado halkaan inaad soo aado sahlan xigmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay halku dhiga Daarusalaam waa gado deegaan ee hagadan guri oo loola jeedo inuu qofku heli karo deegaan waasac ah oo wixii uu doonayo uu ka samaysan karo